beeni rad male beela lawrun mamoday beeni rad male beeni rad male beela lawrun mooda waxaa beryahan maqlayseen eedeymo aan wax sal iyo raatoona lahayn oo xisbiga kulmiye ka soo yeedhayey oo ahaa in telefoona lagula hadlo shacbiga somalilan telefoonada idinku soo dhacaya reer kulmiye ka qaylinayo waa kuwan kuu sheegayay inamadu albaabka garaacayaana wiiganay ku imanayaan waxaan ugu talagalnay oo qorshaha iyagu yahay qof walba oo reer somalilan oo telefoon haysta waxaanu samaynay systemkii lagula hadlayay waxaanu diyaarinay kumanaan iyo kumanaan dhalinyaro ah oo guri walba garaaca oo telefoon walba garaaca telefoonada la idin soo diraa maaha qaar kaftana ee wadani lagu codeeya waa kuwaanu qorshaynay waa kuwaanu diyaarinay qof walba oo reer somalilan codkiisaanu weydiisanaynaa codkiisa ayaanu weydiisanaynaa telefoon baanu garaacaynaa xarunta waxaa ka howlgalaa 120 qof waxaana shaqaysaa 8 subaxnimo ilaa 9 habeenimo habeenkii dadkaas maalin oo dhan way hadlayaan waxay la hadlayaan dadweyne codbixiyaasha jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan ku nool laascaanood ayay la hadlayeen wiigii hore hadda burcay la hadlayaan hore Hargeysa la hadleen waxaan rajaynaynaa in doorashada ka hadhay 200,000 qof inay la hadlaan dadkan imika waxay mataleen murashaxiinta laakiin murashaxa laftiisa ayaa isna soo wici doona dadka haddii rabbi xukumo musharaxa madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ayaa arki doontaan oo telefoonada soo garaaca qof u soo garaaca Soomaaliland isagoo codkiisa weydiisanaya waxaa beryahan maqlayseen eedeymo aan wax sal iyo raatoona lahayn oo xisbiga kulmiye ka soo yeedhayey oo ahaa in telefoona lagula hadlo shacbiga somalilan beeni rad male beela lawrun mamoday beeni rad male beeni rad male beela lawrun mooda